bulshada sida tooska mar waliba nooga xirnaan jirtay fanska noo ahayd mar waliba halka nagala socotay maanta mastabulow waxaad moodaa in xiisada ay xiisadii hore ka duwan tahay صح halkan maanta waxaan iskugu nimid in aan wacno madaxweynayaalka kala gidisan sida madaxweynaha dalka Uhuru Mungai Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed iyo waliba madaxweynayaalka kale dalka Uganda madaxweyne Museveni ha marka ugu horeyso niyow horta xiisada duxunaa jira Farmaajo waa la socotaa Soomaaliya niyow zaid loo kacsan yahay abaar markay dhacday hatta waxaa labada bilood oo mishaarkeed waxaas dhahay muslimiinta macnaha dadka rayidka iyo shacabkan ugu deeqaadahay moogtahay صح wixii ku kallif horta inaan wax ka weydiino صح waa wacayna صح ana ogdada daba socda dadka asaga xil ka qaadan noqdeena wax kale cadow iska noqdeena moogtahay cid horumar la rabto ma jirtee maya marka hore waxaan rabay inaan wacno Ismaaciil Umar Geelle صح laakiin waa hurdo badan inta badan maya telefoon ma qabtaba dal dhibkiis waxa waay Ismaaciil Umar Geelle Djibouti saaci barka soo toos dadkaas waay darad anoo Djibouti korkeeda soo marayaan niyow maray gashkaale sawir ma ka qaadata laakiin marka ugu horeysa halkaan aan joognaa ka bilaabayna Uhuru waan wacaynaa صح Uhuru waxaan ka wareysanaynaa xaaladda asaga Raila dhaxdooda maanta ay mar hayso iyo ninkii kale oo ka fakado Ruto aha ha nin kale oo ka fakado Ruto inuu xaaladiina maanta intay maraysa maanimahan afkaadu waa la garan waaye waa ku sideen leey صح bal aan ugu dhufano suu korto inuu qabanayo inuu qabanaynin Allahu a'lam waa naftankiisa bal aan aragno haddana madaxweyne Uhuru Kenyatta telefoon sug Usiweke Kenya chini. usiweke Kenya chini Siasa zenu wa chuki. madaxweyne asaga hello Hello. His Excellent Uhuru Kenyatta. Yes, mwananchi karibu sana. Salama, mimi naitwa Hassan Abwan. Yes, nakusikia. Boys tam dhaxdeedan ka soo wici haya Forest. Kwani kuna moto ama nini kwa Forest? Kuna moto waxaan rabnaa inaan kula hadalna niyo maanimahan dambe af Soomaali wax yar nagula hadalaya. Unataka Kisomali? Anataka Kisomali. Najua Kisomali kidogo. Masha Allah, that's what I want. Uhuru waxaan kule adoo gabar suuban qabo sariirta ay ku firaystay salool hilib ku kor saarto habeen walba ay ku suuri deeqiya waa taa surneedo sambuusidaad cunayso laga soo qaaday sawire gurigaadana kuma salanine Raila iyo Ruto miyaa guriga ka saaray wewe unaingia siasa mbaya nini Raila tulifukuzana na niko na shida mingi sana walaalo Uhuru af Soomaali ku hadal walaalo Uhuru Mlefi wote Farmaajo alifunga miraa hakuna miraa inaingia Somalia mlefi wote wanakuja state house kunipigia kelele waxaan ku soo wacnay taasa kamida waxaan ku soo wacnay moogta anaga had boys tam dhaxdeedan joogna saaki waxaan ka Geneva aan ka soo lugayna saaki hata dadka meeta markaan dhex marayna ta waa nala yaabanayeen sasa si watu ongeeni na Farmaajo kwanza fungue hiyo miraa shike uko na nyinyi upate pesa mimi sasa kana mingi na hizi ndogo fiiri Farmaajo labadii unujua laba bilood mishaarkeedu dhaay dadkan ugu deeqa roobka intaas imaadeen horteed mo abaarta gas ninka hadda weli ka garab hadlay ma garanaysa waa saaxiibkay buulo waay waa garan Soomaa najua sana waa ninkii gabadha afar jirka dharbaaxi waay oo maxkamadda u hambaliyin jirtay sasa si wafunge hii askari yenu wewe sikia mwananchi mimi sitaki maneno mingi miraa lazima ifunguliwe mimi shida yangu ni mingi Ruto ananipigia kelele Raila ndio rafiki yangu lakini ameniweza hapo kwa siasa mimi nataka kujitayarisha siasa ya 2022 tafadhali sitaki kupiga kelele na wewe funga maisha yangu mimi niko na wasiwasi mingi sana wewe kufa na wasiwasi wako pia lakini adiga 10 sano lagu targa war waxa ka daran Uhuru 10 sano wuu dhameystay muxuu dadkan u daba orda Raila wax muusan arkin Ruto wax muu arkin muu ka har waxaan kula yaaban ana boys tam Forest dhaxdeedan ka soo wici hayna saaka inta ka bacad markaan dhahay waxaad ugu hadlay maqlaysaa ma Forest gubituki ma Forest gubiti aan noo soo dir dibdimis miyaan waa ninkii aan leen u galnay 12 subaxnimo aan galabtin urin telefoonkan ugu jirsaan oo la hadlay hor naga tagdaniyo dib ma laha dadka fiicana jira waxaan wacaynaa Abiy Ahmed aan wacaynaa Abiy Ahmed waliba بريالكان راحة كم جرو صح بريالكان راحة كم جرو وحنا حبين هور أرجع أسوي دفيس كجرو واحد أسطور وحنا نينك دنا عيدا نينك دنا مضح ضاي مية واحد إذا تكيا عاي كل إنا القوانين إنا كده لا وعلمه
abi axmed niyo nin waa nin ku jira jiida hore ee dagaalka jiida hore dagaalka ku jiro Sax. nafaas as telefoon ku qabta Ha. laakiin waxa laga yaabaa waa ku nasiibsanina maya waxa laga yaabaa qowmiyada turkiga iyo waxaan inaad ku maleeyo Oo telefoonka iga arka ayuu ka qabto ha kaygu waa bilaas 254 mogtahay Bas. laga yaabo inuu u maleeyo wasiirka gaashaandhigga Kenya inaad ku maleeyo macquul Bas, ii dhib marka, ii dhib. wa abi axmed waa kaas abi abi axmed axmed bilaas Ha, bilaas 251 loo dheereen isla dhageysanay haye ma fahant wala waa dhici haya abi axmed waa dhici waa dhacaya Ethiopianka laakiin af Soomaali wala hadal af Soomaali wala hadal hello abi axmed Hello, Somali miya? Soomaali waay Soomaali waxaan ka soo wicahaynaa weli kama dhaqaaqin meeshan uhuru ka wacnaan joognaa Forrestan joognaa Boystown Haye. waxaan ku weydiinaynaa xaaladaada horta xaalad degan ma laha cid meeshaana kugu kacday waa ognahay waxaa lagu soo jiraa mandheere intay wajeer u jirtaa caasimadaada Addis Ababa loo soo jiraa Niyo haddaan wax iin sheego hee nafsigii Soomaali ay hay aniga haye wallahi waa runtiis xabadihii ugu bilowday sanadihii la soo dhaafay hadda xabada lagu wadaa Haye. tigre ciyaaraad malaynays oromadii waa laga batay haye aniga horta tigre waa nacabnahay oramadan ba jecelnahay habeen ma buhurduba anoo eesiigi mukeefki ku dhex jiro oo meeshii madaxtooyadii jiifa biyaha guriga igu soo galeen oo absi darteedaan banaanka la baxan dadaan la dagaalamaan aljazeera waxay noo sheegtay inaad ka soo tagtay caasimada oo aad imaaday tuulooyinka tuulo intaa imaadaan rafaaday iyo xabada igu socota hadda waqtigaan la hadlayna xabada igu socoto ididka iga baxaayo orodka iga baxaayo marka niyo horta wadan difaac iguma jirtee oromadle ay kaa dhamaataan adeerkaale maskaa dhinta darteed u dagaalamaya caasimada waxaa ugu soo baxday oo dadka dhan ay ka gadan tahay wadanka inaad difaacayso annaga aan u malaynayn wadanka inaad difaac wadan difaac kaama ahan maxay kaa tahay war oromaan difaacanaya oromay soomaali walaalo soomaali walaalow haye Soomaalida meesha joogtana marka Soomaaliyan garab ka rabaa Uhuru Kenyatta garab ka rabaa horta Kenya waa cabsan waa ordo ogaa laakiin Soomaali walaalahay aan garab ka rabaa farmaajo saaxiibkii aan garab ka rabaa annaka horta Soomaaliya nahay laakiin Soomaaliya kuma noolin Kenya joognaa insha Allah dagaalku waxa kala qayb gala abwaan guri aan ku soo diray abwaan guri jiido hore dagaalka geey waa nin ad adag nin la dheeray soo diray nin la dheeray meeshan aan ku rafaaday bes nin kaanaan kuu soo diro kuwa kalena waa ku raadina tigrayna ciyaar ma ahan tigray xabad markaad ku tuuray dhagaxna ugu dar dhagax waaya ay ilaahay kuma gargaar Ethiopian aad hada Soomaali waa laysay war waa jaray hajar wax faa'iido u leeyahay malaha waa wax wariyaan iskaga dhigana ma ogi waa Ethiopian waa xasid dal xasid ma garanaysa waxaa ku oromaan u dagaalamaya moogi aniga waxaa ku wax kale oromo iyo Soomaali qadiyad oroma ku jirta qadiyad oroma haddana waxaa sraba fiir oroma asoo u dagaalamaya ciidamo Soomaali marka ciidamo Soomaali meesha la geey inay baaba'aan asraba waa Ethiopian waa ku faansan ku go'emo naqlaa war ku goyniyo mar horan ku jari warkays waa kan nin mas'uul sarahan wacayna niyo mas'uulka nooc ii qabaniyo hadala abi axmed xabad ku socoto garmaajeenay yaad noo wacday hadda waxa noo wacda madaxweynaha caalamka oo dhan ay fiirinayaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noo wax kala Allah ogtahay le waxaan kula jeclaa intaas waa maal dhaytaa waxaan maqlay labada bilood ee mishaarka aan qaato waxaan ugu deeqiyaa dadka abaarada ay saameeyeen marka ninkaas noo wacay naftirkiis adduunka dhan ku foorare bal ninkaas waa lambar Kenya amu malay arrimo badda inaan kala hadlayo badda laga soo dirsado badda waaba dhameynaa qaadka fur in la dhigi rabana waa u malaynaa kowdhe u sheeg ha qaad iyo badba kuma soo wicin dadkaada ku soo wacdi waa wacayso aan maqalnay inuu qabanayo ina kala niyo waa mashquulsi waxaan niyo waxa xasan sheekh maxamuud iyo dad badan farmaajo aan aqaan wanaagiisa waa qabana waa kii qabta waa laan dheer banaan uu qabana waka hello محمد عبد الله فرماجو His Excellency وعليكم السلام والله soo dhawaataa waan dhawahay niyahow waxaan ka soo wicihay dalka Kenya kowda meel balad xaaw wax yar u dhow kastanka mu'aadan soo dhawow Soomaali meel walba joogto waa Soomaali wadan loo go'an ma jiro soo dhawow baan ku leenahay ha marka niyahow wallahi waa mu'aadan wallahi waa nin wanaagsan waxaan kala hadli rabnaa
arrin badna shaqo kuma lihin arrin qaadna shaqo kuma lihin laakiin walaalow dadka way cabaadayeen waxay leeyihiin farmaajo qaadkii maxaad nooga fasaxi waay qaadka hadda diyaaradaha iyo dhanba hadda reer annaga meesha aan joogno dhamma dadku waxay noqdeen nin walbaba 9 marduufa sidii neef lo aad habeenka cunaa kowdhe haye qaadki inuu raqiisay waxa waay 500 kun shilin nin walbaba cidiisa gareetaas u rarana markaad leeyahay qofka ma digiraas wadaa maqlaa xoolihii abaarta gasho xataa inaad qaadka siinaysaan baan ogaaday warniyow khaadkii Soomaali loogu targalo diyaaradaha lagu daldali jiray dhan magaalo la yiraahdo Mandheera oo barda xaawadiris la ah la keenay gareetooyinka lagu wada gareetooyin waxay cunaan 2 kiilo 3 kiilo haa haye marka waxaan maqalnay arrin wanaagsan horta samaysa kowda haye mishaarkaada waxaan maqalnay inaad ugu deeqday dadkii shacabka ahay oo muwaadiniinta abaarta ay haysay sax waa waxaas waa howlaha aniga aan dibadaha ugu soo tagay baasaboorka dunida ugu qaalisanaa sababtaan u celiyey waxaa ka mid ahaa inaan Soomaalida garab siiyo wiil niyow laakiin dhibka jira ma garanaysaa niyow nin xasan sheekh maxamuud la dhahay niyow nin kaloo seedigo asagana la dhahaa xasan cali khayr la dhahay niyow nimankan baan Facebook meel walba sawiraad inay soo qaadaan balaayo ay kor saaraan mad adoo badda kor socdo mad adagoo macnaha maaragtay ay sayn ku yeelayeen dameer ka dhigaan mar sacay ka dhigaan ada dhamaalo ermaan nooc kale waxaas laakiin niyow dadkaas laba waxa niyow jirna xaw kuma yeelma garaacdeeda waxaas walaal raggu waa rag Soomaaliyeed waxay sidaan u noqonayaan waa xilkan aniga gacanta ku hayo xilkaana waxaan ballan ku qaadayaa insha Allah inaan Soomaalida wax ugu qabto cid walba wax soo dhigtay waxa shaqadeeda ma aha Facebook aan aqoonin WhatsApp aan aqoonin Soomaali bay tahay aniga xilkiisa si fiican baan u gudanayaa cid wax sheegto waxaas waan ku sii shaqeynayaa laakiin lafta garaadaan rabna moogta inaan wacnaa dad waxaan nagashinay farmaajo xilligan waxa waa bareeshaad iyo sokorta ku gocinay dhowr qarax balax ka dhacday muqdisho gaarkaada ka dhacday lafta garaad ama kaan ku mashquulin magaalada dambe inaad ciidan ku firdhisaan maqlo Mareykanka lagu soo tababar hadda Puntland waan galay meel walba waan haystaa waxaan sii ballan qaaday cid walba iyo rimaadinaan niyo hadda la teeda labaad ciidamadan gorgorniyo ayaga naf extra meel si ciidamada xabadda markay ka dhamaato dadka niyo nolosh ku qabana maxaa way nimankan waxaan xabadda qoriga markay ka dhamaato dadka nolosh ku qabanood keentay maxaa way laakiin adiga naf extra meel si warniyo muwaadiniman telefoonka qabtay wad u daran tahay shakhsi ballan qaad leemtihiid waan u jeedaa inaad ka sii darayso gorgor shaqo shaqo kumid لكن مدير معشوا مدير هرت ها مدير هي مركا هذا هرت كحمارن ciidamada eliteria lagu aad ku soo tababaraysi waxaan maqlay kunaad keentay haaf-haaf u soo wada hadda marka waxaad maxaa ka jira waxaas wax ka galay mal adiga maxaa jira waxaas wax ka galay warno mararka qaar farmaajo noo sidii neef waxyaabaha maya farmaajo waxyaabaha qaar lagu sheega ama ay run yihiin sababtoo anaga Facebook isticmaalna mar walba waxa aragnaa adoo majnuun lagu yeerayo ciidamada aad u qaaday Eritrea 20 kun ay ahaayeen kunaad keentay walaalow kunka kale ma gadatay warniyo waxaas waa arrin siyaasadeed ma fahmaysaan wadanka duu soo kabcaya war wadanka ila dhisa ama iskala dumiye wadanka idinka iskala hadda diyaar baan u haynaan dhiso wadana dhisa ismaha madaxweyne dadkii aad Eritrea geysay in la cuno diidan sheegto labadaas bes fiiri waxaad sameynaysaa mudane labadaas bilood mishaarkooda wax nooga soo dirniyo aan isla cunno ilow dadka annaga dadka tabaalaysan oo ceenkaas oo sheegaysan ku jirnaa waan u jeedaa marqaanka idin gambiye maya ma marqaan mudane madaxweyne adigu Mandheera post YouTube la dhaha ma daawataa yahay dhowr mar waagi channel baan daawan jiray oo xiisada socotay waxaad sheegaysaan waa aad baan u socdaa madaxweyne channel warniyo channel soo adiga ciidan baas oo nagu soo fasahay magaalada aan joogna nagu la qabta anaga dhan boolay sidii jiirka oo la qabsadaniyo yaa gowde waa gartay أنا لقب سوالف ورقبت إنك مركا كده ما تبقى قف نول أنا وهذا مجال ما نحدث صعد بكلية اللي يقول ما حد ورجنا أنا وركن مع هرمعد وأنت أنفق وهرمعد أنت واللي بيه ورقيد من النيو وأصدقائك تمجع عيد أصاب بحس معي هاين waxaa subxaan wa taala galay inaan Soomaalida ku jirino ay dhalinyaro dadka jacayl waa dhalinyaro wadaniina
ودليل وين دلك دفاعان إذا الشغل كماليزان بدي صدرت ستيشن جوجل رئيسي ورجل لسان ولا يدك الدفاعية war hadda anaga Kenya aan joognaa ilaahay ha ku barakeeyo laakiin yow dadka muwaadiniinta lacagtaas iyadu waxaan rabnaa dadka ugu wanaagsan sida hadda wasiir wasaarahada maaragtay Roble ninka horta nin wanaagsan uu eegyahay أيه horto shantan dambana waa ku soo noqonaysaa because saadaasha la fiiriyaa moogta ilmaha yarata marka aan beerta ciyaaran waxaad arkaysaa aniga farmaajo way dhahayno dharkaada gadanaya inaad arkaysaa moogta صح turkigana inta badan taageer buuxdaad ka haysataa moogtahay صح hadda ninka saaxiibaheedan oo garabkaada Abi Ahmed waa kan hadda niyow inaad buumi iyo garan xirtaad waxa wax hub oo rida aad yaabas dhididka ka yaacay waad yaabaysaa niyow anigana dagaalka ugu horeeya waan soo gali doonaa saaxiibkeen ku dayanayaa marka dagaal waan galaynaa Soomaalida xuruuda rabnaa saaxiib daabshiil wuxuu ka qaata duuqana iga dayo war badintii Soomaalida war badan tahay warka joojiyo siyaasadda la indirsan hagelina dantiina qabsado Facebook waxaad sheegaysaa faro ku dirarkana ka soo xawariyaa way mudane way warawa nin wanaagsan hadalkiisa ay ugu dar Wallahi siyaasiga ugu caansanaa Siyaasiga ugu sharafta badnaa Soomaaliya soo mara waa ninkan ay majnuunka ugu caan Soomaalidana warano maxamed junuun ana waxaan kala hadlay muujadada Ha. lafta garaad markaan dhahay wariyaa ninka waa siyaasi Waa siyaasi. meel aad gelma Abi Ahmed markaan ka hadlay wuxuu yiri anigana saf Dagaalkan, diyaar laakiin waa. walaal midaan yaab waxa way ciidamadan aad mar waliba niyo kuwa gorgorka kuwa labiya kuwa hermacadka kuwa galiixa marmaaninta mandheera post waa daawdaa laakiin maalinta jananan idan Janan, maxkiimo ha. war janan niyo ciidamo wax nagu soo fasaxay ilaahay xaalkooda ogaaniyo Zaid. waxaad arkaysaa qodib aan wadin ninka kale howsirka soo riday orday صح intaanay horta noogu eg tahay barnaamijka intaas uu ku eg yahay madaxweynaha aan ilooni in aan wacno aad rabtaana commentiga ayaad noogu soo qori doontaan waa noo wici doona waxa idin la hadlayna waa madaxweynayaashii aan aniga tooska u wacnay waxaana barnaamijka idin daadihinay anigoo ah buulow iyo abwaan xasan gure abwaan hataa ma xasan waxaanu gure sidaas idin leenahay sidaa iyo nabadgeliyo